Khubaradu waxay soo saaraan digniin caafimaad oo halis ah oo ku saabsan daawooyinka waalidka. Tani waa mid la yaab leh sida ay u socoto. Dhacdooyin yaab leh, gabadh yar ayaa samaysay isbeddel xubinta taranka ah kadib markii ay taabasho maqaar badan oo maqaarka ah aabbaheed kaas oo marsaday gel testosterone. Kiis aan caadi ahayn ayaa ka dhacay Sweden, halkaas oo nus darsin kiisas oo kale ah ay ka dhaceen. Dhacdadan qallafsan oo si weyn loo sheegay in gabadhu ay korayso micropenis ayaa soo jiidatay dareen badan labadaba bulshada caafimaadka iyo sidoo kale dadka caadiga ah. Aan si faahfaahsan u eegno sida ay wax u dhaceen iyo sida. Gabadh yar oo ku nool Sweden ayaa kortay xubin dheeraad ah kadib markii ay la koolkoolisay aabbaheed sidii ilmo dhashay. Laakiin waxay soo baxday tani maaha markii ugu horeysay ee tani dhacdo. Dhakhaatiirta Swedishka ee endocrinologist waxay diiwaangeliyeen kiis ilmo dhadig ah oo 1 bilood jir ah oo aabbihiis uu isticmaalay gel testosterone si loo daweeyo libido hoose ah oo inta badan loo qoro ragga silica ah, mararka qaarkood loo gudbiyo isticmaalka tamarta hoose sida hormoonka jinsiga. Taabashada maqaarka ilmaha ayaa si isdaba joog ah loo saaray laabta aabbaheed oo qaawan. Soo gaadhistani waxay keentay in kintiradeeda dheeraato oo furuuyaha ambarku isu rogaan qaab hiniinyaha oo kale ah oo hadda loo aqoonsaday micropenis. Sida laga soo xigtay Professor Johanna Dahlgren, khabiir ku takhasusay cudurrada endocrinology ee carruurta kana shaqeeya isbitaalka jaamacadda Sahlgrenska ee Göteborg, waxay aragtay waalidkii oo noqday si buuxda u quustay markii ay xaqiiqsadeen waxa dhabta ah ee hormoonada. Carruurta, waalidkii ilmaha oo welwelsana ayaa u geeyey dhakhaatiir markii ay 1 bilood jirtay. Qiimaynta caafimaadka kadib, baaritaanada dhiiga ayaa shaaca ka qaaday heerarka testosterone aan caadi ahayn ee sare ee ilmaha. Mar uu aabbuhu joojiyey inuu maqaarkeeda u muujiyo gel hormoonka, calaamadaha caafimaadku waxay bilaabeen inay dib u noqdaan. Inkasta oo dhacdadu ay noqotay mid fayrus ah, iyada oo la dareensan yahay iyada oo ilmaha yar ee koraya micropenis, ereyga dab ahaantii maahan mid sax ah, sababtoo ah waxay khusaysaa oo kaliya xubnaha taranka ee ragga ee aan kobrin. Micropenis, sida daraasaduhu muujinayaan, waa xaalad si adag loogu qeexay dhallaanka labka ah sida dhererka gufka fidsan ee ka badan 5 weedsanaanta caadiga ah ee ka hooseeya eliska, qiyaastii in ka yar 7.5 inji ee dhallaanka cusub. Caadi ahaan waa mid lagu dhasho oo waxay la xiriirtaa yaraanta hormoonka ama cilladaha hiddaha mahorumario de novo ee gabdhaha ka soo qaybsiga testosterone dibadda. Fahamka micropenis, sababaha iyo daaweynta. Micropenis kaasoo saameeya qiyaastii 1.5 ee dhalmada lab ah waxaa badanaa sababa yaraanta testosterone uurjiifka ah ee ka yimaada hormoonada ama carqaladaha hidda socodka sida hypogonadotropic hypogonadism ama Kallman syndrome. Xadiga ogaanshaha iyo saamaynta kiliinikada ayaa si fiican loo qeexay. Wiilashan ayaa laga yaabaa inay u baahdaan daaweynta hore ee testosterone si ay u dhiirigeliso koriinka guudka sida ugu habboon ee dhallaanka si loo hagaajiyo natiijooyinka. Nidaamyada daaweynta ayaa inta badan ku lug leh si taxadar leh loo kormeeray koorsada gaaban ee testosterone jel ama irbado. Guushu way kala duwan tahay iyadoo ku xidhan sababaha asaasiga ah iyo wakhtiga iyo taageerada nafsaaniga ah. Inta badan waa muhiim si wax looga qabto la qabsiga iyo walaacyada muuqaalka jirka inta lagu jiro qaangaarnimada iyo qaangaarka. Maxaa ku dhacay gabadhii? Danka gabadha waxaa marar badan la dul dhigay laabta qaawan ee aabbaheed si ay jidhka ula yeelato aabbaheed, taas oo loo arko inay tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah marxaladda isku xidhnaanta ee waalidiinta cusub, kuwaas oo lagu dhiirigelinayo inay dhallaankooda ku qabtaan maqaarkooda qaawan. Marka loo eego nesta, tani waxay u oggolaanaysaa dhallaanka cusub inay maqlaan codka raaxada leh ee garaaca wadnahaaga iyo codkaaga, taas oo ka caawin doonta inay dejiyaan. Si kastaba ha ahaatee, inanta yar aabbaheed ayaa isticmaali jiray shayga testosterone, taas oo ah nooca hormoonka ah ee hormoonka labka ah, taasina waxay noqotay xanibaadda gabadha ilmaha. Maqaarka. Laakiin waxa ay u muuqataa in aabbahani uu seegay qoraalkan ku saabsanaa maadaama uu is ogayn in uu inantiisii yaraa laabta dul dhigay isaga oo aan is ogayn in uu hormoonka soo saaray. Si kastaba ha ahaatee, waxa Sweden ka dhacay sida ay dhakhaatiirtu sheegeen ma ahayn dhacdo gooni ah. Sida ay sheegtay Professor Johanna Dahlgren, waxaa dhacay nus darsin dhacdo oo aynkooda ah oo ay iyada lafteedu ka warqabto. Iyadoo la hadlaysa wargeyska Göteborgs-Posten ee dalka Sweden, waxay ku boorisay waalidiinta inay aad uga digtoonaadaan khatarta daaweynta hormoonada ay u keeni karaan carruurta. Sida laga soo xigtay Maylonline, khabiir ku takhasusay cudurrada endocrinology ee carruurta ayaa yiri, uma malaynayo in dadku ay mar walba fahmaan sida ay daweyntu u leedahay. Waxay kaloo daaha ka qaaday xaalad kale, wiil 1 jir ah naasaha ka soo baxay kadib markii uu la kulmay kiriimka estrogen ee hooyadii isticmaalaysay. Khatarta soo gaadhista hormoonka iyo caafimaadka ilmaha. Kiiskan Swedishka ah ee yaabka leh ayaa iftiimiyey khatar ka duwan soo gaadhista labaad. Gel testosterone oo caadi ahaan ragga loogu qoro hypogonadism bilowga dambe ayaa la nuugo maqaarka oo weli ah mid awood leh si uu u saameeyo dadka kale. Hypogonadism xaalad naadir ah waxay sababtaa baaluqnimada iyo hiniinyaha yaryar sida ay sheegtay nas.
cilmi baadhistu waxay ku qiyaastay in 6 ragga ay la ildaran yihiin hypogonadismka bilowga ah. Tani oo ah dhakhaatiirta endocrinologist ee Imperial College London ayaa hore u sheegay Sun Health in nees ay arkayso rag badan oo ku bilaabay testosterone si sharci darro ah ama lagu dhejiyey rugaha caafimaadka gaarka ah. Waxa uu yiri, nimankan intooda badan waa in aysan weligood ku dhirin testosterone marka hore, isaga oo sharaxaya in qaadashada testosterone aan loo baahnayn ay kordhin karto halista xinjirowga dhiigga, dhiigkarka iyo kolestaroolka. Nimankan, sida uu qabo isticmaalka testosterone waxay la mid tahay ku dhejinta balastarka gooynta. Waxa uu intaa ku daray, waxay dabooli doontaa calaamadaha, laakiin dhab ahaantii weli waad xanuunsan tahay. Si kastaba ha ahaatee, kadib markaad dalbato gel hormoonka, marka dadka waaweyni ay ku guuldaraystaan inay gacmahooda dhaqdaan, daboolaan goobaha codsiga ama ka fogaadaan xiriirka saacado, carruurtu waxay nuugi karaan hormoon ku filan si ay u keenaan isbeddel jireed, xitaa fertilization ama baaluq hore. Maamulka caafimaadku waxay si adag ugu talinayaan in laga fogaado taabashada maqaarka ee dhallaanka ama carruurta saacadaha ugu horreeya kadib codsiga.